asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kula wanaagsan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan daafaha iyo dacalada caalamka soo dhowaada waa mar kale iyo maalin kale axmed baqaya ayaa halkan idinka salaamaya waxaa idin ballan qaaday inaan warbixin idinka soo qaado insha allah kulanadii shalay angela merkel iyo 16 maamul goboleed go-aanaday gaadheen habeenkii xalay ahaa ayaa idiin soo gudbiyey qaybo ka mid a asxaabta halkan iga daawata ee sharafta leh ayaa su-aala ka keenay isla markaasina qodobada qaarkood aan fahmin ama su-aalo kala qaba waxaan isku dayi doonaa insha allah bal inaan eego isku dayo inaan go-aanada laftooda dib ugu noqdo oo aan idin sharaxo intaa idin sharaxi kara insha allah kolley qofkii doonaya inuu qodobadii dib u wada daawado waxa uu ka daawan karaa barta youtube-ka axmed baqaye ama waxaa idiin soo dhigi karaa halkan hadda muuqaalkaad iga daawanaysaan lidkiisa sare haddii aad youtube-ka iga daawanaysid halkaasaad ku dhufsan kartaa hadda ma aha markuu muuqaalku dhammaaday kadib aad ka daawan kartaa laakiin isla qodobadaasi ayaa idiin sharaxi doonaa insha allah idin dulmari doonaa isla markaasina waxyaabaha aad u baahan tihiin aad ku ogaataan insha allah aan dib ugu noqon doonaa waxyaabaha la furay iyo waxyaabaha xidhan waxaa jira warar fara badan oo dhanka youtube-ka ay dadka qaar kusoo qorayeen iyo facebookyada oo kale aad ku arkaysay in dalka bandow la geliyey waxyaabo been ah dadku ay soo qorqorayeen marka waxaan isku dayayaa bal inaan asxaabta igu xidhan ee sharafta leh ee iga dhowraysa inaan halkan xog saxa ka siiyo aan idinkula wadaago waxa saxa dabcan markasta hadda halkan iga daawatid oo aad igu xidhan tahay waxyaabaha ugu dambeeya ama ugu muhiimsan ayaa idin soo gudbiya way jiraan dad kale oo dhanka facebooka codad iyo muuqaale iska soo gelgeliya kuwaasi oo aan markaasi laga yaabo inay hadallo dadka degdeg gelinaya ama warar odhanaya dadkao dhan waddankao dhan baa bandow la geliyey supermarketyada la xidhaya oo dadka qaar supermarketyada ku yaacay inaad arkaysid meelo fara badan oo aan run ahayn ay dadku laleeyahay waa la xidhay marka waxyaabaha dhabta ee la xidhay ayaan insha allah idina wadaagi doonaa iyo waxyaabaha furan ee markaasi weli shaqayn doona halkaad iga daawanaysaan waa barta aan ku leenahay youtube-ka axmed baqaye iyo facebooka axmed baqaye ayaad iga daawanaysaan insha allah haddii aad nagu cusub tahay youtube-ka axmed baqaye fadlan subscribe youtube-ka saar lasii wadaag saaxiibada sababta ah waxaa muhiim ah inay wararka runta ah gaadhaan maadaama qof kastoo dalka jarmalka ku dhaqan ay taabanayso fadlan inta qof aad og tahay ama aad garanaysid halkan kula wadaag oo fariinta gaadhsii waa iga talo sababta ah waxa aad naftaada la jeceshahay walaalkaan la jeclow waa tahay horta bandowgu wuxuu bilaabmayaa maalinta isniinta toddobaadka soo socda labada bisha 11 ee sanadkan 2020 maa sanadka dambe waa labada bisha 11 ayuu bilaabmayaa waxaanu soconayaa muddo 4 isbuuc ah ilaa dhammaadka bisha November marka waxay ka dhigan tahay bisha November oo dhan bandowga ay soconaya markaan leeyahay bandow dadka qaar ayaa odhanaya bandow adiga wale dalkoo dhan baa la xidhayaa sida qaarkood ciwaankii muuqaalkaygii shalay ay su-aale ka keeneen marka leeyahay bandowga waxaa la yidhahdaa wadankii oo kale aad taqaanay bandow wax la geli jiray waxa la odhan jiray wadanka bandow buu ku jiraa maalintii oo dhan dadku waa shaqaysanayaan nolosha caadi bay socota habeenkiiba bandow la gelayaayo qof wadada maraya ma jiro taasaa bandow la odhan jiray laakiin markaad iminka bandow baa la gelaya wadooyinka askar laguma daadin cid lama xidhin muhiimaddu waxay tahay un qaabkii ay noloshu u soconaysay ayaa control lagu sameeyey oo xoogaa la hakiyey marka sidaas markaan leeyahay bandow waxayaan hadal idinku daalin hadal baan idinku waalay baan filayaa qodobada ayaan idin gelaya insha allah maxaa loo ogol yahay maxaase la diiday ayaynu inta badan kusoo koobi doonaa mawduuceena maanta kulanka dadka waa qodobka ugu muhiimsan uguna horeeya ayaa waxaa la yareeyey kulanka dadku ay kulmayaan dadyooga kala duwan ee dalkan jarmalka ku dhaqan ama bulshooyinka ku nooli kulanka ay kulmayaan ayaa la yareeyey iyadoo laga dhigay lagu soo koobay 2 qoys labada qoys tira ahaan ma dhaafi karaan 10 qof macnaha ma kulmi karaan 10 qof wax ka badan 10ka qofna waa inay ahaadaan kaliya 2 qoys haddii ay 3 qoys yihiin markaas dambi ayay ku jiraan oo sharcigii ayay jebiyeen haddii aad 3 qof tihiin xitaa oo aad 3 qoys ka kala timaadeen dembi weeyo oo sharciga waa ka hortimi 2 qoys baa isku raaci kartaan 2 qof waa isku raaci kartaan labada qof 2 qoys ka soo kala jeedaan 1 qoys ka soo kala jeedaan 3 qof baa isku raaci kartaan haddii aad 2 qoys ka soo jeedaan laakiin hadda 3 qoys ka soo jeedaan qalad weeyo isma raaci kartaan marka sida ogaada 2 qof aan idhaahdee 2 qoys ama 10 qof guriga gudihiisa
ama banaanka labadaba intaa ka badan lama ogola. dhanka xafladaha gebi ahaan waa la mamnuucay in xaflada lagu qabto gudaha dalka Jarmalka. dadkii kulanma doonaya waa macquul inay deegaankooda ka codsadaan kadibna loo diido ama loo soo ogolaado, laakiin caadiyan waa mamnuuc in xaflada gudaha dalka Jarmalka lagu qabsado 4 isbuuc ee soo socda. safarada waxaa la joojiyey dhanka dalxiiska. qofku meel wuu u safri karaa haddii aanu dalxiis u socon. arrimo caafimaad wuu u tegi karaa, arrimo kale wuu u tegi karaa, laakiin dalxiis looma safri karo. marka safarka waa su-aasha ugu badan ee su-aashu ay ka timi. mawduuceena xalay marka ka hadlaya dadka qaar ayaa waxay commentiga igu soo weydiinayeen siday macquul u tahay in airboodadii ay furan yihiin sidoo kalena safarka mamnuuc yahay. airboodka waad ka safri kartaa, waad ka soo degi kartaa, laakiin waa inaad marka hore ujeedada aad u safraysid ama uga soo degaysa ay tahay ujeedo aan ahayn dalxiis. sababta markaad safraysid haddaad dalxiis u safraysid waa mamnuuc oo dalxiis uma safri kartid, balse siyaabo kale oo safri kartaa, arrimo adiga kuwa khaasa oo safri kartaa laakiin aan dalxiis ahayn. isla safarkaasi gudaha dalka Jarmalka xitaa uma kala safri kartid arrimo dalxiis. haddii aad gobolkaaga gobol ka duwan aadaysid oo aad qof kale soo booqanaysid ama arrimo dalxiis aad u tegaysid ma aadi kartid, sababta hoteella lagama karaynayo. haddii macasleeda qof kala booqo haddii lagu qabto oo aad tahay sabab dalxiis baan u socdaa oo gobolka Baden-Württemberg baa deganahay, gobolka Hessen baan aadayaa oo aan 7 soo joogaya dalxiis ahaan ku aadayaa, waa mamnuuc ma tegi kartid. laakiin shaqo waad u tegi kartaa, practicum waad u tegi kartaa, ujeedo kale waad u tegi kartaa, iskuul waad u tegi kartaa. sababta dadka qaab gobol degan gobol kale iskuul lagu tagaa way jiraan dabcan dalka Jarmalka beelaha gobolada ay xiriirka ka leeyihiin. marka gobol kale uma safri kartid, wadan kale uma safri kartid. saa daraadeed iyadoo saas jirta airboodada ama madaarada ama goobaha diyaaradaha ay ka duulaan waa ay furan yihiin oo way shaqaynayaan, waxaana ka dhoofi kara kana soo degi kara qof kasta oo aan dalxiise ahayn ama dalxiise niya naagba dalxiise sama okay waxaas leeyahay. kubadda cagta ama kubad oo dhan, kubad cag, kubad kolay, kubad kale waa la ciyaarayaa. Bundesliga iyo ciyaaraha dalka Jarmalka ee liigaga dalka Jarmalka way shaqaynayaan, laakiin taageero la'aan ama taarabuun la'aan ayaa lagu gelayaa oo caadi ayaa loo ciyaaraysa. dabcan haddaba loo ciyaaro oo mararka qaarkood oo arkaysa iyadoo dad yar oo kooban joogaan, laakiin hadda laga bilaabo bisha November dalxiisa ma jiri doono taageere garoon joogi doona. waxaa kaloo iyaguna xidhnaan doona dabcan oo albaabada loo laabi doona bisha November tiyaatarada, kinowiska, tiyaatarada riwaayadaha lagu soo bandhigaa, kinogana waxaa lagu soo bandhigaa filimaanta. sidoo kale fitness studioyasha ama goobaha fitnesska lagu sameeyo jidhiska way xidhnaan doonaan. waxyaabaha goobaha dabaasha haddii ay meel furan tahay haddii meel xidhan tahay labadaba bisha November way xidhnaan doonaan. dhanka ciyaarahana waa mamnuuc bisha November hadday tahay kubad kolay, kubad gacan, kubad lugeed, kubad madax, kubad meel kale oo aan ka ahayn ciyaaraha caadiga ah ee dalka Jarmalka. macnaha waxa laga wadaa ciyaaraha kubadda ah ama waxyaabaha kale dhalinyaradu iskood intay isu abaabulaan wada ciyaaraan lama ogola. waxaa kaloo haddana furan qodobada sida isu qeexayaan. ciyaaraha waa la ogol yahay dadka caadiga ay ciyaarayaan haddii ay yihiin 2 qof, laakiin 3 qof looma ogola inay haddii kubadooda ciyaarayaan 2 qof kubadooda ku ciyaari kartaan, laakiin 3 qof kubadooda ciyaari kartaan. tusaale ahaan orodooda samayn kartaan, 2 qof waa isku raaci kartaan, soo wada ordi kartaan, laakiin 3 qof lama ogola. haddaad sabtidoo kala duwan sida kubad soo ciyaartid adiga iyo saaxiibkaas raaca soo jimicsada labadiina kubaddaas wada ciyaara, laakiin qof saddexaad haddii ku soo biiro dambi waaye. waa tahay waqtigaan ku dheeriyaan filaya wada dejinaya kuwa kale ciyaaraha 2 qof wax ka badan lama ogola. maqaaxiyaha, dhiskooyada, shishabaarada kuwaasina way xidhnaan doonaan. maqaaxiyaha liifuqum ahaan ama abholin ayaad ku samayn kartaa oo wad dalban kartaa, kadibna dalabkaas ayaad ku qaadan kartaa oo cuntadaada meeshaad cuntida ayaad ku cunaysaa, laakiin ma fadhiisanaysid oo maqaaxidii cunto kama dalbanaysid. cosmetic studioska ama goobaha cosmeticada lagu iibiyo ama goobaha masaajka dadka lagu riixriixo jirkooda haddii jirku iskaaga lahay baan ka wadaa. weli ma samayn masaaj, qofkii sameeyey commentiga igu soo qor bal sida uu dareemaya. waan ku arkay masaajyada wuxuu yahay waan aqaanaa, laakiin weli ma samayn. marka jirkaygaas galgalaybaan mooyaane isaga laftiisa masaajku isaga baahan yahay. waa tahay
tima jarayaasha waa ay furnaanayaan oo lama xidhayo. Sidoo kale terabiga meelaha terabiyada, sidoo kale fisfliga ama fis terabi qofka marka lugaha loo duuduugayo idinka garanaya waxaas. shirkadaha wax iibiya iyagu way furnaan doonaan, shirkad kasta meelaha wax lagu iibiyo dhan way furnaan doonaan, laakiin dad kooban ayaa loo ogol yahay inay galaan, dad badan looma ogola. iskuullada dhammaantood way furnaanayaan, iskuul kasta oo wax lagu bartaa way furnaan doonaan. commentiga ayay ku jirtay faarshuulayaasha ma furan yihiin mise way xidhnaan doonaan. iskuul kasta wuu furan yahay, iskuullada caruurta, iskuullada dadka waaweyn, iskuullada gaadiidka lagu barto, iskuullada ausbildnada lagu sameeyo, iskuul kasta oo wax lagu dhigtaa wuu furnaanaya oo lama xidhayo iskuullada. kindergartenada iyadoo sidoo kale oo iskuullada caruurta way furnaan doonaan. basaska iyo taranadu way shaqaynayaan, xuduudaha way furan yihiin sidooda caadiga ay u shaqayn doonaan, balse markasta xuduudda waxaa joogi doonaa ciidan oo hubin doona dadku inay u hoggaansan yihiin sharciga, inaanay dalxiis u socon oo arrimo muhiima oo shaqo oo kale u socdaan. qodobadaas kolley waa idin soo koobay waxyaabihii su-aaluhu ka taagnaa. haddaad su-aal kale qabtidna commentiga igu soo qoray, insha allah waa idinka soo jawaabi doonaa qoraal ahaan. haddii aad qodobadii shalay qaar halkan aanan kusoo xusin shalay laakiin aan idiin xusay, muuqaalkii shalay ayaad dib ugu laaban kartaa. waa warkii shalay go-aanada Angela Merkel xalay fiidkii ayaan soo geliyey, waqtigan soo geliyay arki kartaa. waa warkii 28 bisha taariikhda ay ku qoran tahay. haddii maca taariikhdu ciwaanka aanay ku qornayn waxaad ka heli kartaa waqtiga la soo geliyay uu kugu qoran yahay, ama warka ku horreeya markaad youtube-kayga tagtid videoska tagtid waa warka labaad ee ugu soo horreeya. waa tahay Angela Merkel ayaa maanta hortagtay baarlamaanka dalka Jarmalka si ay u difaacdo go-aanadii ay shalay iyada iyo 16 maamul goboleedyada gaareen. go-aanadaasi oo qaar ka mid a mucaaradka iyo xildhibaanada baarlamaanku ay kasoo horjeesteen, kama soo horjeesan laakiin ay ku dhaliileen xukuumadda oo ay dhahdeen inaad go-aanadaasi gaadhid ma ahan adigoo annaga nala tashan, inaad annagana soo marisid ayay ahayd si aanu go-aan uga gaadhno. maanta ayay baarlamaanka hortagtay si ay arrintaasi uga doodo, islamarkaasina ay halkaasi doodeeda uga dhiibato. 2 wiig ama 2 toddobaad kadib ayaa insha allah ayaa lasku soo noqon doonaa si go-aanadaasi wax looga bedelo ama wax loogu daro. dabcan waxay noqon doontaa in go-aanada wax lagu daro oo la yidhaahdo waxyaabahaas dheeraada kusii daro, tusaale ahaan ama tima jarayaasha oo kale ha la xidho, ama iskuullada qaar ha la xidho, ama meelo la xidhay in dib loo furo. adigu dib ayaa loo eegi doonaa siday wax isu bedelaan 2 toddobaad kadib. 2 toddobaad kadib ayaa wax lagu bedeli doonaa ama wax lagu dari doonaa. insha allah halkan ayaad kala socon doontaan oo si live ayaan idinku soo tabin doonaa mar kasta iyo meel kasta aad joogtaan. mar kale halkaad iga daawanaysaan waa barta youtube-ka Axmed Baqaye. fadlan haddii aad nagu cusub tahay si diiran ayaan kaaga codsanaynaa inaad muuqaalkaasi sii gaadhsiisid qof kasta oo aad garanaysid oo dalka Jarmalka jooga. ugu dir Instagram-kiisa, halkaa doontid ugu dir warkaasi, isku day inaad gaadhsid. sababta ujeedada aan maalin kasta kama soo fadhiisano ee aan warbixinaha idinku soo gudbinaa waa inaanu ka haqabtirno, islamarkaasina walaal kasta oo Soomaaliya oo dalka Jarmalka ku dhaqan inaanu gaadhsiino xogtaasi, ama asxaabta deriska wadamada deriska jooga ee doonaya inay Jarmalka yimaadaan si ay uga faa'iidaystaan oo xogtaasi u helaan. annaga micno badan noo samayn mayso inaad dad badan daawadaan iyo in dad yar ay daawadaan, laakiin waxaa muhiim ah inay daawadaan dadka aan ugu talagalay fariinta. sababta ah haddii aanu maantuna halka ka hadlayno, hadhowna walaal Soomaali ah oo dalka Jarmalka jooga uu u soo baxo inuu hawl meel xidhan uu safar u aado, ama waqti kaga baxo ama lacag kaga baxdo, kadibna lagu yiraahdo way xidhnayd oo bisha dhan ma shaqaynaysa, ama aad fitness aadid. fitnesskoo kale bishan soo socota lacagtaadii waa dalban kartaa oo dib ayay kuu siinayaan. gudshayn ahaan oo kale kuu siin karaan si aad bil dheeraada u isticmaashaan. bilaha soo socda bil ka mid a lacagta lagaaga daayo oo kale ayay macquul ah inay dhacdo, waad ka dalban kartaa. marka fadlan gaadhsiiya saaxiibadiin, waa iga codsi. kolley 2,000 qof oo Soomaaliya ayaa daawanaysa oo ka mid a Soomaalida dalka Jarmalka degan. haddana 2,000 waan ka badannahay, ilaa 40 iyo 50 kun ayaynu gaadhaynaa. dadkaasi fadlan gaadhsiiya qof kasta oo Soomaali ah oo aad garanaysid gaadhsii si aan uga faa'iideeyo, isaguna faa'iido ay ugu noqoto. sidoo kale muuqaalka waad dejisan kartaa oo barahaaga bulshada sida TikTok ama ha noqdo ama Facebook ha noqdo waad dhigan kartaa. ujeedadu ma aha inaad viewska qof ila qaybsado ama meel kale laga daawado. ujeedadu waxay tahay inaanu fariinteena gaadhsiino Soomaalida walaalaheena dalka Jarmalka ku dhaqan. waa mahadsantihiin saaxiibayaal, meel kasta aad joogtaan daafaha iyo dacallada caalamka. waa Axmed Baqaye hawada ka salaamaya. insha allah maalinta beriya wixii cusub ayaa idila wadaagi doonaa. haddii caawa wax warari soo kordhaana waa idila wadaagi doonaa. waad mahadsantihiin saaxiibayaal. intaan mar kale meel kale iyo maalin kale kulmi doono. waa Axmed Baqaye oo idin leh